uurka hooyo anoo ku jiro waa maamada hooyadii waxaa maray baabuur oo shil baabuur ayay gashay anoo markaas uurka maamada ku jiro cunuga caloosha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي وإن سلام كحرن جنال كي اسمه قال أوفيشال سو دواء رمانتي ميلك سودونة كجوجتين وحرجين أنا عافمات قبتين سيدا أنا وعافمات قبو بديس ديتا مركو هوريسو إصابة وقت سبسكرايب يسار آدي آدو وما حسنتا واي وحقيتا ديرقلين آدينا وحوكا عمل بيسو أدي أهران ولا جوجتنا مقالكا نولا قرأي سيدا وكلا آدينا وما حسنتا هاي ما أنتو حناو دا فيديو ورئيس لقي قاعد دكريو أو شيء مركو دلنا أما أنتو سودونة كسو بيرين ولقل بمعجزة ربانية marka asaga noo sharaxayo waxa soo dhan aan isla daawan asxaabtayda qaaliga waxay adiga taageerayaashaada iyo asxaabta kugu xiran iyo bulshada weyn ee Soomaaliyeed meel walba dunida dacalada ka jooga iyo asxaabta khaaska ah aba taageerayaasha Dikriyo oo iraahda sharafaa leeyihiin waa dhaw waa gartay waxaan ku dhashay magaalada Kismaayo kastaada iyo waliba xaafadda Calaleeya Kismaayo inta in salaamay Dikriyo Cabdixaafid horta waa mahadsantahay waa su'aal muhiim ah Dikriyo waa magac aad iyo aad u qiimo badan shakhsiga lagu yaro ariga ahna waxa aaminsanay inay baaratay sharaftiisa karaamadiisa aan hubanahay magac lii xulay aba magacyada marka carruurta marka dhashay Cabdixaafid oo ogtahay waa dadka la weydiiyo waxa la yiraahdaa war hadii wiil baa yimid aba gabar baa timid magacyo la baxnaa magaca Dikriyo wuxuu ugu imaaday magac qise ah oo taariikh ah sida ogsool tahay Cabdixaafid haddaan wax yar ku dalbaro taariikhda yaraantayda uurka hooyo anoo ku jiro waa maamada hooyadii waxaa maray baabuur oo shil baabuur ayay gashay anoo markaas uurka maamada ku jiro cunuga caloosha lagu siiday markaas anigu ahaa dhaawacyo uurka dhexda hooyo ay igu soo gaaray sida maaragtay feeraha oo kale iyo madaxa oo jug culus bay igu soo gaartay lisma lahayn macnaheedu cunugan ayaa noolaan doono balse ilaahay dilaa dhinta alxamdulilah Cabdixaafid markaan beentis maaha la dilaa dhinta wuxuu noo sheegay inuu markuu uurka hooyadiis ku jiray ama oo hooyadiis uurka lahayd in gaari dul maray laakiin la dilaa dhinta ma uusan dhiman ilaa hadda uu nool yahay maasha Allah beenta maahan ku dhalay xaalad degdeg ah ahayd markaa dhashayna waxaa dhashay anigoo ku haya Allah Jibriil magaca Dikriyowna halka ayada ayuu iga soo raacay مغلي صوت مقع دقريو لو بحي مركو دلنا وحو ما أفكسو كو هذاقاي الله جبريل علشان مقع إلهي أكبر واقاي بالكسيس درتد إيا لو بحي دقريو سو دقرنا يولا الشبو ما شاء الله Cabdixaafid oo aniga markaa dhalay isoo ku sheegay xaalad maadaama shil maamada ay soo gashay oo baabuur soo jiiray aniga gudaha ku dhaawacnaa waxaa ku dhashay xaalad degdeg ah ama xaalad kooma ah sida maarto cunuga markuu dhasho kale cunuga caafimaad qabo bicilihi markuu dibadii baado kale sararta la geeyay laakiin aniga marka dhalay bicilihi waxa ahaa qof burbursan oo uur hooyo ku soo burburay oo dhaawac baraaka marka dhaawac ku ka soo gaaray marka iyo madax ayuu iga soo gaaray Cabdixaafid oo sida markaas oo aan taariikhda ku haya ama markaas goobjoogaal badan ama hooyadii macaan oo inta ayada nafteeda ka salaamay hooyo ilaahay uu kulkiisa ku xafido hooyo macaan ما شاء الله هو يول بصومالي waxaan rajeynaynaa waxaan ilaahay u baryaynaa inay adduunka korkiisa farxad ku noolaato aakhirana meeshii la jeclaa jannada ilaahay ugu bishaareeyo waxa dhashay aniga ku haya Allah Jibriil marka dabcan waa mucjisaadkii ilaahay bay ka mid tahay Cabdixaafid oo cid xirowna waana anaga rasuul wal jamaa umada dhan baa rasuul wal jamaa laakiin si qaasle family kala ma aragto waa cid ma aragtay alxamdulilah ilaahay ahlu diina magaca xaggaas iga raacay Dikriyo isla markii wadaadada ma aragtay isbitaalka waa taqaanaa Soomaaliya arigoo xanuunsan markaa dhashay qaybta kooban marka la sii geliyay inta badan bulshadii markaas goob joog ahayd oo markaas baabada la joogtay xitaa rag badan oo familkii odayaalba markaas ku jiro yiri ma aragtay cunuga noolaan maaye waxyaalo mucjisaadka baabada iga sheekaysa waxa ka jira markaa hadda weylaaday ragga adeerada iyo meesha yimid markaas nin ka mid ah inuu yiri kale cunug ku noqon maaye waa saqiirey aaminay ka samar baabada hooyada abale la yiraahdaa ilaahay wuxuu xogmay ninka asaga ahaa soo nin weyn inaa maaragtay dunida ku saaciday oo abaal u galay nin weyn ah sanbo wuxuu dhaa markaan koomaan oo ku jira dhasho hooyaday adeerayaasha macnaha tolka nin kamid ah adeerkii hooyo imaad ku dhahay kan waa wuxuu ogyahay wax mid dhima doonay ka samar
saas macnaha ila dilaa inta been ma qof walba Soomaalida iska warbadan yihiin qof markay arkaan dad waxa jira dhaha qofkan indiisa u jeeda ma noolaha ayaa la iska dhaha Soomaali waa iska qiyaas badan tahay Ilaahay noo dam dhaafay xaaladda ku dhashay iyo macali ilmo yar oo markaas joogta ka sheekeynaya oo baawur uurkooyis ku soo jeeray macali asagana Soomaalida inta badan Cabdixaafid hadda ku daro qiyaastana baarta la boona kuna oo baarta isla markii wax iska qiyaastana wala waxaan jeclahay Cabdixaafid haddaanan qaldin inuu ahaa Land Rover oo Soomaalida waxay u yaqaaneen magac kale Soomaalida u yaqaaneen baawurta yararka Land Rover-ka waagartay Cabdixaafid oo inta taas gal ka dhaxgalay inta la Kismaayo ka soo bixin erideeda Kismaayo waxa ka mid ah waxyaalaha kale mucjisada ay u qabsaday inta badan waxa uu leeyahay bulshada caawina daawad doonta ama maanta iraahday barnaamijku ku soo gaaro waxay isdhihi doonaan dikriyo wuxuu sheegay macna inta badan waa iska ku dardar waa taariikh sax ah oo jirta waxa dhacday Cabdixaafid oo Kismaayo gurigeena wuxuu lahaa ceel marka ceelkii waxa dhacday nin adeerkay ah oo markaas ceelka shubay inuu yiri adeer aroo meesha maraya oo cunugeena adeer kaalay wadaaltan iga qabo wadaaltu waa taqaana marka u yar tahay caalka ma ku dhicirtaa igni xinoosaa digriyo wala qisa badan ku qabsatay wala 20 kiilo ceelka waa iga culustay ani 20 kiilo 3 kiilo weey adeer iga qabo asaga markaas ba aqaana si wax ka hayeen adeer iga qabo yiri asaga marka macawustaas wax uu fiirinay wadaalta xarigeeda markaas uu qabtay ceelka ku dhaxlay Cabdixaafid oo halkaas qasa أنا صدق جرأة بعيل كون حداعي ولي استغفر الله ku qasna meesha miyay wax ku qasla odagu weyn cunug yar istahjira wadaan soo sheego 20 kiilo qaas markuu dhiibay intuu ka fikiraya asaga kulli waa wax ku qorna laakiin hadda waa ka noosha alxamdulillah ceelka markaa ku dhacay ceelku waa dhuubay darbiga soo artay waliba dhag iyo qasaare kale iyo juu kale iga soo gaartay gudaha ku dhaxdhacay Cabdixaafid Ilaahay waa ilabcay Ilaahay waa barkiyay isla markii baartay adiga anoo biyo cabay oo laakiin markaas ku dhow suxlimaan baa reerkii markii qayliyeen uu ninkii odayga hada qayliyay asaga ceelka isku soo dhaxlay isla asaga adeerkii naftigiisa sidana haddana maartay halkaas kaga soo badbaaday ceelkaas waa taariikhda Kismaayo markaa dib u yar laaban waxay ka mid tahay taariikhda waxyaalaha mucjisaadka ka mid tahay Cabdixaafid markaa soo qaxlay Kismaayo markii dadka laga soo qaxay Soomaaliya gabi ahaan marka la soo qaxay أنا إسكال البيرة وحاي ماني بارتي بيل يراهد هواس ويني وجار كسو كيسة طبعا ريكين ويا غرس ولا تبدور دتك سوق حلو ويا غران هواس ويني وعمل عرضة وحلة حانة سيدا عرضة بارتي بلاه إنه حاول تي في إنه كاركي سو عرضة بارت هذا دبي ليبيا صحراء عرضة فرح بدل هذا أبي سيدا أنت بدل جبوا عرضة حانة أو فرح بدل واحد عادي مال ما كبده maamada suuq u socotay Cabdixaafid carruurta waa taqaan markii waalidkooda baraak u baxayaan waxay jecel yihiin inay raacaan maamada kadib hooyo ku raacaya wali waxaan maartay intii la bisris xitaa waqti ba siirin waaye hooyo way raacaysaa suuq bay ugu tireen waxaa jiray aqal Soomaaliga badaba aniga markaas qaxooti helo dad macnaheed banaanka magaalada Habaasweyn banaankeeda la dhigay dadka qaxooti markaa waa taqaan markaa guriyihii dhisana aqal Soomaali aqal hooriga dadka inta badan u yaqaan waxa dhacday Cabdixaafid barkinta aroosan gacanta ugu jiro oo saa barkinta ku barkarahay gacanta barkinta iga hoosisa ayaa waxa dhacday abeeso weyn Ilaahay subhanahu wa ta'ala iga badbaadiyay abeeso weyn baa qaliitay markaas dhag halkaas oo bidixda halkaas ala cashi Cabdixaafid iga qaliitay khaliyadeedu way kulleed marka abeesada waxay leedahay inta badan micibay leedahay dadkii yaqaan baciida hadii kugu jabisay abeesadana waa halis waliba dadka inta badan waxay dhahaan da'day kugu qaliintay da'deeda kala gaarto wala la curiyaa bay dhahan alxamdulillah Cabdixaafid markii inta iga qaliintay qaniyada kuleelkeedii abeesadii markaas carruur baaha waa iska qabtay qabashada gacanta midiga iska qabtay dal suulka iyo doob nin hooga daw abees qabanaysid wallahi nin karmeeda taa gacanta bidixda iga qaliintay markaa iska qabtay tirmidigta hadana iga qaliintay oo maartay rasuulka abeesada iga qaliintay khaylideeda waa gartay marka kaliya ayaa joogo aaba Allah yarxam naxariis jalaalaha ka waraabsiye aduqa aaba markaas jooga maamadii oo markaas labisaysa joogtay walaaladii dhabaal waa la wada joogay khaylideeda lagu soo kala carray abeesada
intiina maciida dhinacan gacanta bidixii iga jibin midigta iskaga qabtay midigta markii iga qariitayna aniga abeysada dagaal halkaas lagu dhex maray isla boosashinkeedii ku laabatay booskeedii ku laabatay waxaa dhacday cabdixaafidow naxariis jal allah ka raabiya aabe duqa aabe allah raxma baa markii qeylideedu boqlay waxaa la yidhi wal maxaa dhacay wiilkii maxaa qariiliyo waa la raadiyo marka hangarnay mid wiil la dhashay asaga iga wiil waxaa la yidhaha Idris la yiraahdo asaga dheere uu ku joogo inta ka salaam walaalkii waxaa la yidhi bal isla baar wiilkii maxaa qariiliyo maadaama carradana way u agtay abeysada markaas la yidhi maxaa qariiliyo inta marka ariga qeylilayo cabaadayo baraaka joogo baabada iyo baartay la baxraananayo ayay kale xukumo qeeyay baadigob si fiican uma xasuusto cabdixaafid inuu aabaha iyo walaalkii Idris inuu ahaa mid kamid ah ayaa waxa qariinay markaas hangara la qariinay hangara arkay markaas xilli link hangara la qariinay mas hadii dib loo sii baaro bas abeysada isla exact meeshii barkita ka dhaqaaqay laakiin dagaal ay u diyaar garowso hadii isla laabtay way xirtay qof walba markaas aaday inay maarta la dagaalanto halkaasna waxaa kaga badbaaday qaniye abeyso alxamdulillah abeysada barta ayada lagu dilay isbitaal la cararay labada gees gacmahana waa laga fiiriyay wax biciil ma jirin waxaa kaloo xasuustaa markii uu leeyahay digriga wuxuu noo sheegay inuu 3 mucjiso ka badbaaday mid asoo uurka hoos ku jira inuu gaari dardaray uu kan nool yahay mid kale inuu ceel ku dhacay uu sidoo kale ka caafimaad qabo hadda waqti xaadirkan sidoo kale abeesa inay isdhagaayeen oo ayadana ilaahay ka badbaadiyay والله قف كو حمق جير قف واي أرك يلا ولوت ما قف كانوا قالوا حلا قف آن دول مرة دايما مالميد واحدة سعدي واي أرني ما قلت ما يمكن أنه في فيديو قصير وديري هاي والله وحلو قصة مشي قصوين آدي وحنون بدن أوقف كنفسيا مكو كشيء كنا صومالي بدن على حد نوحي لا وقاعدنا إنه بيني يسقدر درس شيء لكن صدو شيء أسوأ واحد سيري أصلا إلهي نقبض بادي معتسول بقى أنا لكل النوع حالي أدينا إلهي كابد بادي مرة والبكو شكري مرة والبقوم هالعلي هادنا إلهي كم تصل بعتك له أنا وي فيديو جي أنت سكسو قبل قبل ما دام فيديو سعيد وداري مرة ما يستري كرا فيديو جي أنت سكسو قبل قبلنا وحاد الله أصحابتي قالقة بليز مرة لوادي مرة حد حكى عصنا إنا سبسكرايب يسارتي هذا آدي وما هتصن هدي أهرنا اللي جوكتنا مقال كان أنا ولا جريس سيدا كله وحن قالقة مقال كان حاجة أنت كل مدونة سيدا فيها